haddaan falaqeyno runtii arrintan doorashada haddaan falaqeyno looma joojinayo sidaan qabo waxaa la aadaya loo dareerayaa in la sameeyo doorashadii hogaankii ahaa guddoonkii golaha shacabka guddoonkii golaha sare dhammaantood doorashadii la galayaa madaxweynaha loo dareeraya inta hartaran gadaala laga saxayaa hadda haddaan fiirino istaraatiiji aan fiirino 80% doorashada way soo baxeen waxa noo dhiman kaliya waxa weeyaan 16 kursi oo ka imaanay Garbahari oo ciladeeda taagan laakiin intaan kale waa in la xalinayaan rajaynayaa oo waayo hadda uu ku socdaa speed dhaqso ayuu ku socdaa international runtii waxa ay leeyihiin anaga waxa aan nahay deeq bixiyaasha waxa aan nahay community-da caalamka ka mid waayo haddaad fiirisid adduunka wuxuu shaqeeyaa global way wax UN la yiraahdo oo Soomaaliya member ay ka tahay sida maamul goboleed camal ay number ugu tahay oo member ay ka tahay caalamka marna lama rabo inuu dibdhac inuu yimaado dalka waxa la rabaa inuu hore loo socdo wadanka in xasilooni lagu soo rogo wadamada caalamka sida daris wanaag maamul wanaag dawlad wanaag oo ka socdo kale in la haweeyo hadda waad aragtaa waxa qarash nagu socdo waxa kaalmo ay caalamka ay bixinayaan Soomaaliya inay istaagto ay socoto ayay rabaan wax kale ay rabaan ama jirin anaga laakiin waxaan rabnaa maya aniga qabiilkayga aan rabaa anaga rabaa inaan maamul hoose aan aado waxyaalaha laga hadlayo waxaas weeye Soomaaliya sideedaba waa wax oo culture oo dhaqan oo runtii oo soo jireen ah bal haddaad fiiriso madaxweyne madaxweynaadkiisa dhamaaday Garbahari ku dhagan yahay bal aawo maslaxadii Soomaaliya loo idmaday waxaa la yiri ilaaliyaha iyo dastuurka iyo horumarinta maadida dastuurka ee Soomaaliga weeye lama dhihin ilaaliyaha iyo dastuurka iyo maamulka Garbahari way Garbahari ugu dhagan yahay waayo intaas xataa maamul goboleedyada ay isqabsadeen muddo ay ku doodayeen walaal waxaad arkaysaa qaladka ugu weyn ay dhacay waxay ahayd in wax laga barto madaxweynaha madaxweynaadka la doortay laakiin taa wax kama qaban karin amuura alle ahayd laakiin waxaa la rabaa hadda iyo wixii ka dambeeyay dhalinyaradan cusub oo baarlamaanka lagu soo xulay iyo xildhibaanada oo sharafta leh inay fiirsadaan ay arkaan yaa maslaxadda ummadda u qaban karo balse yaa Soomaaliya matali karo yaa ilaalin karo yaa sharafka iyo sumcadda iyo karaamada kala dambeynta soo celin karo 5 sano oo waxay noqoto mugdi laakiin wax laga bartay ayaa la rabaa in wax laga barto dalkii la noqdo wax walba waxa weeyaan experience haddaad qalad sameyn wax ma baranaysid de waxa weeyaan lama sugayo lama dhahayo Garbahari kaliya loo xirnaanaya laakiin waxa la aadaya doorashada la aadaya waxa la sameeyo guddoonkii aqaladii sare aqalkii golaha shacabka waxa loo dareerayaa in la sameeyo madaxweyne cusub la doorto xildhibaanada ay codeeyaan dalka hore u soconaya Liban marka ma waxa leedahay 16 kursi hadii 15 bishan la gaaro waa laga soconaya oo dawladda imaad doonto ayaa u tali doonto ساسمات marka aad u soo jeedinaysaa aniga laba option ayaa miiska fuulo labada option miiska fuulo wuxuu yahay guddiga hadda oo ra'iisul wasaaraha magacaabo yiri xal soo inay horta meesha wax ma lagu qaban karaa way diideen hadday diideen maxaa la qiyaasi karaa way in Jubbaland inay qabato iyada Kismaayo lagu qabto Kismaayo la soo keeno xildhibaanada 16 kursi Kismaayo ay ka soo baxday way Jubbaland ayaa maamul ahaan in nidaam ahaan iska leh haddii taa ay suurtoobi weyday waa la soconayaa inta la haysto waxa weeyaan 98 waa la haystaa doorasho la aadaya looma waxa la haddii cod xataa la sameeyana hal dheeri inuu ahaado wey waa 10 jeer dheeri wey 16 dalka iyo dalka uma xirnaanayo doorasho la aadaya madaxweyne cusub iyo nidaam cusub ayaa la guda galaya laakiin qaabka lagu socdo ma shaqeynayso dib u dhac dambe inuu wadanka iyo dalkii dib u dhaco haddii la yiraahdo Kismaayo hal la geeyo ama Muqdisho la keeno soo markaasi heshiiskii 17 September oo ku dhisan doorashadan ayaa buraas oo la dhimo Soomaali dhig karo arintaasna way adagtaa in heshiiska la furfuro maadaama heshiis siyaasadeed oo la gaaro u yahay heshiiska Liban sideeda heshiiska waxa uu yahay labada dhinac wax lagu heshiimo ah sideeta inay u socdaan heshiiska waxa lagu heshiiyay qaabkaas inay u socdaan laakiin cilad haday timaado farsamo timaado waa in la xal keenaa ma aha heshiis kasta la qoro xataa haddii laba qofood heshiiyaan kambaniyaal heshiiyaan heshiiska mar walba ciladaha ka imaanaya ciladahaas waxaa la rabaa in waxa la yiraahdo dispute la yiraahdo in la fiiriyo maxaa keen maxalin karnaa dispute ayay qayb ayay ka ahayd wada hadalkan guddiga ra'iisul wasaaraha uu magacaabay arrinta Garbahari oo la yiraahdo aan xalino cilada meesha taagan waa la xalin waay haddii la xalin waay waxa la aadaya plan B la aadaya qaabkii kale Jubbaland soo kama tirsanaha Kismaayo la isla aadaya way Kismaayo loo cararaya haddii Kismaayo suurtoobi weyday waa laga gudbayaa oo waxa la aadaya dhammaan doorasho in loo dareero way 16 kaas howlda la garinayaa had marka la soo baxa gadaal laga fiirsanaya waa tahay arrimaha doorashooyinka markii la fiiriyo hadda gobolka aan dhahay Jubbaland iyada waa aragno waxba ka taagan Hirshabeellana balweyne maalmo la soo dhaf waxba ka taagan hadda in maanta doorasho ka dhacday
in hore la socda ay u badan tahay Puntland iyo Galmudugna meel fiican ay marayaan kuraas yar ayaa ku hartay oo markaasi lagu wado macquul inay tahay shanta beri soo dhaman in lagu soo gabagabeeyo Banaadir iyo Somaliland gobolada waqooyina arrinta oo kala baxay xildhibaanadii waa diyaarsan yihiin marka caqabada hadda markaas ugu weyn waa gobolka Godo markii la soo tago gobolka Godo maamulada kale sida Baydhabo iyo oo iyada markaas aan filayo 6 kursi inay ku dhamaan tahay marka iyo Jubbaland oo markaas aan dhahay Galmudug oo iyadana gaalkacyo markaas ay kuraas aad u adag markii la soo tago marka Garbaharey iyo dhinaca Jubbaland maamul gobolada kale ma kula tahay 15 bisha inay soo gabagabay doonaan aniga saan filayo waxaan liibaan doorasho ma wax socdo xulashana ma wax socdo dad baa loo xirxiraya kuraasta waxa la hebel baa ku soo baxay hal maal la arkaysaa 5 kursi isla hal mar la soo saaraya 5 kursi bal xisaab min 101 imsi weey waa 600 iyo 6 weey oo ergo ma yaxshi 600 iyo 6 ergo ma ka aragtay halka erga waxa arkaysaa xataa ergada qof kale uu leeyahay ayaa dadkan kale xataa dooranaya meeshan doorasho ma wax socdo xataa waxa socdo xataa un la dhameeyo hore ha loo socdo wax wala taagan Soomaali hadda waxa laga hadlayo waxay tahay kaliya waxa la qasaya xataa oo xulashadan iyo waxa magaca baas loo bixinay had dhamaato wax un la soo baxo marka wax un soo baxaya rajeenaya laakiin khilaaf maanta taagan tahay dhammaan doorashada la soo xul 90% wala cabanaya dadka iska lahay kuraasta lahay ma waa loo wada xiray dad badan waa la qaatay qof walba la siiyay qofkii la rabo oo labataa waa la boobay wix la boobi karo laakiin hal boobo xun la soo saaro waxun hala sameey dalka hore u socdo markii arintaas aan si gud galno sida aad sheegtay oo dalka waxa tiri wax ka socdo doorasho lagu talamo karo waa kulleetu wax hal iska dhameeyo midowga murashaxiinta arrimahaas waa ka hadli jireen in ka soo fiicnaa su'aashan ay ka weydiino maxay tahay sababta midowga murashaxiinta shib uga dhaheen waxa dalka soconay marka aad fiirisid liiban runtii waxa markay cusub yihiin ayaa ummadda la yaabtaa laakiin markay la qabsadaan waxay noqonaysaa iska caadi weeye waa normal dambiyada sida hadaad aragto dambiga qof markii qof dilo wadnaba aan dad laga dilo markii hal qof la dilo de magaalada iyo waddanka dhan baa isla qiilinaya laakiin waddan maalin walba dad la dilayo saaxiibkaa kula socda arkaysaa oo gaari wada fuusheen dhimana isla markii soo duugaysaan habeenka normal aad tahay dadka trauma ku dhacay maskaxiinba waxay la qabsadeenba dhibaatada iyo xumaanta dadku way la qabsadeenba wax la dhacay way yaabeen wax kasta laga soo saaray warqadaha la saaray waa la hadlay si kasta loo hadlay waa la eedeeyay waa la hadlay wax laga qabanayo break loo joojinayo ma jiro 5 qofood ayaa waddankii oo dhan qasayso see doonaan yeelayaan see doonaan hore i gadaal u sii wadayaan rabaan dalka inay dib u celshaan qoriyo la isku qaato la isdilo meesha jaanis laga helo taa marka la fiirsho waxa la rabo bal wax uun la soo saaro oo waxaan dhaamo waayo waxa aragna 5 sano aan ka soo gudubno wax saalan maaha dalka inta meel loo jeeyay marba dhinaca laga inta dhibaato laga soo gudbay wax laga sheekeyn kar maaha musharaxiintii ummadii oo dhan waxay la yaaban yihiin marwalba gaarigan derbiga lagu garaacay dalka Soomaaliya marba dhinac loo wado waa pilot oo duuliyo oo loo dhiibo Soomaaliya oo dhan la yiraahday 500 oo qofood oo kabtan oo diyaarad aan wada aqoon loo dhiibo marba doo gelinaya marba horo kala dhacaya dadka way wada dhaleynayaan waxa la rabaa kaliya nin wax wada yaqaan in la keeno nin wax hogaamin karo waddankan oo ka samata bixi kara la rabaa waddanka dhibaato la fuula passengerka iyo dadka fuuleen oo wada qeylinayaan shacabka wada qeylinayaan way wada cabanayaan haddaad maalin walba aad dhigayso aad aragto wax cabashada socdo wax inta soo baahan waxa weeyaan hoggaan wanaagsan la rabaa kaliya wax kale lama rabo kala dambeyn la rabaa garsoor shaqeynaya ma jiro baarlamaan shaqeynaya ma jiro wax ka socdo aad aragtay ciidamada waad aragtay dhalinyaro badan ayaa jooga niyad iyo qalbi wanaagsan oo hay dalka inay difaacaan ciidamada ku wada biireen laakiin hoggaan la rabaa wax ma qaba hoggaan waxa la rabaa waxa weeyaan odayga guriga reerka waa odayga hadduu mar kor iyo gadaal wax isugu qasayo dugsiga macalinka hadduu marba sameynaya ciyaalka maxay sameynayaan qaylidooda ma dhammaanayso shacabka dhan way wada qaylinayaan way wada buuqayaan waa la wada cabanaya cabashadii la rabaa bisle wax xataa la wada le wax una la soo saaro doorashada hal mar ha dhamaato waxa soo baxo cusub dalka badbaado u baahan yahay hadal waa la daalay cabasho waa la daalay warqado qoraal waa la qoray wax kasta waa la hadlay si kasta loo hadlay waxa la raadinaa waxay tahay in la isku dhaco la islaayo burburkii aan ka soo gudubno ay aragnimada aan ka qaadanay ma noqonayso dadku way fahmeen dagaal xal inuusan ahayn waa la arkay Soomaaliya waxay xal u tahay gacmaha inay isqabsadaan
dhibaatada anaga way araganahay Burundi iyo haddaad fiiriso waddankan Burundi iyo Rwanda de wadamada way aragay noqday hadda Rwanda haddaad fiiriso waddanka caalamka ugu nadiifsan sida waxay noqotay waddanka la yiraahdo Singapore oo Afrika imis milyan dhimatay wax way aragnimay ku qaateen Soomaaliya sidoo kale dhibaato badan intaas oo qofood ayaa naga dhimatay intaas oo milyan naga dhimatay intaas la qaxay dagaal waan ognahay wax ka imaanayo laakiin ninka cusub dagaal dadka geliyo ku dadejiyo aniga waxa armaxay hoggaan wanaagsan naga maqan hoggaankan 5 sano ummadda Soomaaliya qaatibilahay taagayeen ninkan madaxweyne madaxweyneedkiisa markuu dhamaaday markii la dooranayay Soomaaliya oo dhan niyad iyo qalbi wanaag u haysay waxa loo raadinaa waxay kaliya inuu isteerin fiican qabto Soomaaliya jid fiican u wado wax ka raacin waan u jeedaan maanta heer waxa la marayaa sanad iyo bar doorasho in laga hadlaayo la bisle bal doorasho aan aadno doorashada xataa doorashada oo la rabay in xildhibaan soo baxan waa arkeena nin walba ehelkiis iyo qabiilkiis iyo beeshiisa wada tamay niman ayaga ay wataan la soo saaranaya ay waxa ma awninka waddanka lagu aaminay maxaa keen ciyaal suuqnimadan maxaa keen nidaam xumadan maxaa keen inuu Soomaaliya dhan madax isugu xiro te walaal waxa la rabaa kaliya Ilaahay ummadda badbaadiyo badbaada loo baahan yahay halkan in la gudbo waxa la rabaa wax ee keensadeen xataa wax un Ilaahay nooga soo saaray fiican ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo 5 sano oo farmaajo xilka uu hayay ama uu talada dalka maamulayay waxyaabaha markaas laga baran karo maxay tahay baarlamaanka hadda la soo doortay ama doorasho ku imaadaan si kala ku imaadaan intooda badan waxay u badan yihiin marka la fiiriyo kuwa cusub oo kuraas loo xiray maamulada qaar marka aad loo fiiriyo oo dad dhalinyaro oo cabqariyaal ahna intooda badan u badan yihiin ma kula tahay in ay siyaasadda Soomaaliya ay jaangoy doonaan oo taliska farmaajo ay soo socotay la soo dhaafay dalka oo markaas uu ku gaaminay isbedel inay la imaan karaan maadaama intooda badan ay yihiin dad aan doorasho ku imaanin taas su'aasha aan ku weydiin rabaa iyo gabagabada wax ku soo gabagabeynaysa dalka liibaan walaal waxa daad fiirisid nin xildhibaan gurigiisa soo gatay booskiisa soo gatay lacag ilaa iyo 300 400 oo kun oo dollar oo ku yimid xildhibaan lagu doortay horta kama sugaysid buu soo galay deyntiis inuu soo ceshto weey madaxweyne waddan kale keensaday lacag ka baxshay xildhibaanadaas lacagta deynta qabeen la siiyay madaxweynahaas deyn baa lagu leeyahay dalkii deynta ka baxsheen waa inuu u gudaa madaxweynaha dalkii oo deynta siiyeen wax uu rabaa kheyraadka Soomaaliya wax uu rabaa waxay tahay waxna kheyraadka dalkeena iyo dadka oo ku jiro in la qaato waa tii ay dhacday haddaad fiiriso wadamadan Gabon aad fiirisid Chad fiirisid Portugal Devo aad fiirisid Congo dhammaan Afrika shidaal ka wada buuxo waxa loo socdo waxay tahay kheyraadkaas sidee ku keentay madaxweyne inuu waddan kale inuu lacag ka baxsho si intaas oo milyan u keen xildhibaanada loo qaybiyo ee ku faanaan aniga qadara wato ninkan lacagta keenta qadara ka bixisa siinayso maalum hore iyo gadaal qadar loo socdo wadamada dariska aan in wanaag ahayn naga dhaxeeyo Imaaraadka Kenya Sacuudiga oo anaga Soomaaliya taariikh ahaan historic ahaan 500 sano 700 sano oo dad anaga walaalo in la yiraahdo xiriirka loo jiro daaweyn Soomaaliya Masar oo anaga Soomaaliya waxaan isku ahayn Ilaahayna og yahay ummadana og tahay daawo noo keentay la yiraahdo daawadaas ma la qaadanayo hal celsho waa daawo weey ee u soo bixisay in Soomaaliya hal loogu talagalay hal la siiyo wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yiri daawadu waana loo diiday inaan keeno yaa diiday way su'aasha taalo qadara diidayso walaal haddii anaga aan leenahay waddan kale oo fargelin waddanka iyo dalka ku hayaba te Soomaaliya badbaado u baahan tahay see ku dhacday in ummad dhan Soomaaliya ay jirtay dhan madaxweynaha waddan kale lacagta ka bixinayo hebelaha madaxweynaha wada aw shacabka wax ay wataan aw xulashada shacabka Soomaaliyeed ilaan xildhibaanada wax ay matalayaan waa shacabka Soomaaliyeed golihii shacabka la yiri nin walba oo meesha ku fadhiyo 275 iyo 50 iyo xogaag senator shacabaa soo doortay codka shacabka Soomaaliya ku hadlaan golihii shacabka la leeyahay golihii shacabka miinis matalaadii ummadda Soomaaliyeed weey waxa Allah masiirkii ummadda Soomaaliyeed laga shaqeeyo ma lacag loo qaybinayaa madaxweynaha lacag boorsooyin ka soo qaaday leeyahay waa la keenay dadkaas hala si dalkii iyo dadka waa beec markaas dalkii iyo dadkii waa wada beec qadar waxay tiraahdo ayaa la fulinayaa wax ay tiraahdo la sameeynaya shidaalkaad aragtay hadda Kenya anaga waa tii dispute dhaxyaal Kenya iyo Soomaaliya bad aan ku wada muransaneen qadarna xaq weela jirtay intana weela jirtay wixii soo baxbo shidaalkaas la qaadanaya la qodanaya
halor dalka wuxuu baahan yahay badbaado dhalinyarada hadda xildhibaanadan la soo doortay oo maanta aan filayno oo yimaadeen walaal inay fiiriyaan way maslaxadda guud ee dalka inay fiiriyaan maxaa xal u ah inay fiiriyaan way maxaa ummadda Soomaaliya mustaqbal see loogu ilaaliyo nin kastoo wax garanayo nin kastoo wax fahmayo nin kastoo wax yaqaan in xildhibaannimada laga ilaaliyo mas'uulnimada laga ilaaliyo loo dhiibo dhalinyaro oo runtii u baahan waay aragnimo in la geeyo see ku dhacday dadka waay aragnimada waa laga korsadaa aabahaada waa inaad macallin uu ku noqdaa ku tusaa wuxuu uu yaqaano oo kugu shubaa adna caruurtaada waa inaad ku shubtaa haddii laakiin aabahaada waxba kugu shubin yaa kugu shubay waxa wax kugu shubay nimanka qadar ee soo dirsatay wax kugu shubay nimankaasna baddaada dekadahaada khayraadkaada waxaaday u dan leeyihin wax kale uma dan laha liibaan dalka waxaa la rabaa badbaaduu rabaa badbaado qaranuu rabaa wuxuu rabaa maslaxad guud in laga shaqeeyo wax uu rabaa waxay tahay ummaddan 5 qofood ummadda waaleyso oo hore i gadaal aan la iska qabanaynin hore i gadaal ciidamada loo adeegsanaya shacabkii ciidamada loo adeegsanaya shakhsiyan ciidanka dawladda qaranka ah loo adeegsanaya hebel la soo laayo hala soo dilo imisa la dilo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waad aragtay ikraan taliil aawi qalbi dhagax aawi haddaan tiran liibaan liis dheer wey wax meesha socdo xagee see ku dhacday nin muwaadin Soomaaliyeed bal naxariis daradan ku sheegay nin muwaadin Soomaaliyeed dalkiisa jooga in indhaha iyo gacmaha laga xiro wadan kale loo dhiibo diyaaradda la saaro bini'aadanimada aawi حتى عالم كبرك قحوتي ودن أد حلو ليه ودن كي كسر عرضي كسر عرض لبعضان كتبنا عندي له وحقانون إن ودن كهذا لوجو جينين ماشي أتكعب ناس إن ندب لوجو إلين لكننا نشقق إن هلا وضع وميلتري كورنيل ذلك ودن قال ميلتري إنها إلا جحري إثيوبي لوجي إثيوبيان كان حين إنك أنا بني آدم مفضلين أنا جا إسكدين إسكد عارف أورثنا ولا بل دم بيجوين على كلام حتى قبل بدي لوجو طول ما اللي هي قد كتر سنوات أيام كم قنتهاي والدين إن لبارو والدين إنه حلاقة قبته والدين محكمة إنه باران والد العسيني من كي أد الوصول شيء بل ذلك مش أمرية ذلك بده هذا الربع ذلك واحد الربع لأن يرد إيه عيدك إنه كم مدح بنايين سياسة ده ذلك أنا أسكال وجوجي ولي قصص أهانيا لكن إلهي اشتغل كان خيرات كان الله صعدا إلهي نقول ما نستي وحكي الله صعدا مجرى قبون فيري وتقصنا اشتغل وليهن جات فير الشدال اللي هو تقصين بقولك شن يتمنى قاطان ما حيكون على شدالك إمارات أنا كبضن أي نقول في عن إهستان إن كويت أنا شدالك كبضن عراق أنا كبضن واي أنا شدال أنا وحول بيسنا إن هذا أنا قاعد تقصنا إن هذا أنا قال إن أنا أجنبي عالم كنا وحبا إن سيننا أنا أبها خيرات كنا ونقول في لمبو هذا روش قاعد أركتي أو يقولين الله تقالي قاس كحرنا يجري wax qeyl ka wada dhacay waad aragtay ma yaalin gaas yaa la xiran bal hala wada hadlo wala ilaahay wuu noo hibay hawadii uu siiye oo hawo 25 degree waa wadanka caalamka adduunka meel ka fiican Soomaaliya ma jirto badoona siiye xooloona siiye wuxuuna siiye beeroona siiye laakiin gaalada ummadaas ajnabiga wax isku haysta intaas ma jiro dadku waxay rabaan kheyraadka shidaalkaas rabaan in la qaato markaas marba nin madaxweynaha lagu keenay lagu leeyahay anaga wadan hore gadaal loo socday ilmo yaro kala loo wacay leeyahay kaal imaw kaal samee kaal qaad kaal yeel nin agency soo qaadanay leeyahay ninkaana wakiil iga waa nin oo ayaga informer u ah Soomaalida tiqiino qobki lahay aawi Soomaali badbaaday rabtaa ummadda Soomaalida meel walba in dhageysanayaan qof walba muwaadin Soomaaliyeed mas'uuliyad ayaa ka saaran inuu dalkan iyo dadkan badbaadiyo dalka anaga iska leh kama yeelan 5 qofood kaliya inay dalka iyo dadka aragtida sameeyo maya shacabku waxa la rabaa xildhibaano la soo doortay inay ayaga metelaan fikirkooda ay ku shaqeeyaan laakiin kuma shaqeynayaan hebel la wato hebel la jooji hebel laga reebo hebel diyaaradda ma duuli karo waa la ogolaanaya wala aamusaya hadda balweyne maxaa dhacday ma jirta ali qoryaal la soo baxsaday doorashada in la furaa waa la furay isbedel la sameeyay shacabka haday kacaan isbedel imaanay ayaantaad aragtay oo ciidanka wadanka soo galay badbaado qaran isla markiiba 2 sano waa laga noqday dadku waa lagu tijaabinaa hadii la marsiin karo la marsiina haddaan la marsiin karin dhinac kale loo aadaya laakiin hadii la aamuso waa lagu soconaya ilaa ay darbiga ay taabtaan shacabka waxaan leeyahay dalka idinka iska leh waxa socdan wax loo dul qaadan karo ma aha wax la dhageysan karo ma aha wax la sameyn karo ma aha in maalin walba ajnabi wadan kale inuu dalkeena noo keeno lacag anaa ka bixinayo hebel yaa wata mashruucintu waxa leeyahay hebel yaa wata wadanka madee wataan lacag muxuu haystaa war lacag waxa ka miisay maslaxada guud